تعبت من العدة، تعبت نفسيا من حاجة اسمها غسيل عدة. السلام عليكم. ramadaanku wuxuu ahamiyad weyn u leeyahay dhammaan dadka islaamka ah meel walba oo ay caalamka ka joogaan. waxaana bishaasi barakaysan ay caan ku tahay in qoysasku ay wadaagaan afurka iyo suxuurta. miisaska ayaa aad loo soo camiraa iyadoo la soo dhigo suxuun ay ka buuxaan cuntooyin kala duwan oo u badan qaar dufan leh sida hilbaha, maraqa iyo wixii la mida. laakiin saacado kadib markii laga kala dareero miisaskii camirnaa, waxaa sida badan wadamada Asia iyo Afrika dhibaatada ugu culus ay soo food saartaa dumarka, kuwaas oo keligood gacanta ku dhaqa suxuun iyo alaab aad moodo in casuumaad lagu cunay. dumarka ayaa si gaar ah waxa ay keligood qabtaan hawshaasi aadka u culus, iyadoo aysan jirin cid ka caawisa hawshaasi suxuun dhaqista ah. raggii ka xoogga weynaa way iska dareeraan iyagoo aan wax garab ah siin gabdhahaasi kurshiinka ama jikada ugu jira. Zainab waa gabar Suudaaniyad ah oo ku daashay dhaqista weelasha cuntada lagu cuno bisha Ramadaan, waxaana iyadoo ka cabanaysa hawshaasi faramuruxa ah ay muuqaal video ah soo dhigtay barteeda Facebookga. waxayna tiri, waan ka daalay weelal dhaqis, nafsad ahaan waan liitaa, waan ku daalay suxuun dhaqista, farahayga eega, noloshayda farahayga sidan ma aysan noqon. 30 maalmood ayaan ku xukumanahay inaan dhaqo alaab ciidaas ka badan. ilaahay baan ku dhaartay, suurtagal ma ahan sidatan. maalin walba inaan gacanta ku dhaqo in ka badan 30 saxan, intaas waa gurigeenna oo keliya. waxaad moodaa sida inaan casuumaad qabno. suurtagal ma ahan. ramadaanku goormuu dhammaanayaa? waan iska ooyaa mar walba. gacantayda waxaad u malaysaa sida qori dab ah oo cunto lagu karsaday. xaqiiqdii waan ku daalay alaab dhaqiddan. dadka isticmaala baraha bulshada ee dhanka internetka ayaa ka falceliyey muuqaalka Zainab oo ka cabanaysay maacuunta faraha badan ee ay habeen walba gacmaha ku dhaqayso. waxaana jiray qoraallo fara badan oo dhiirigelinaya Zainab iyo kuwa aan u naxariisan intaba. waxaana qoraalladii ugu yaabka badnaa ee Zainab loogu jawaabay ka mid ahaa mid ay qortay Naciimo oo tiri, waxaan u malaynayaa inaad shaqada kurshiinka ku cusub tahay. war 30 saxan ee aad sheegayso mar hore ayaan ka gudubnay. hadda waxaan maraynaa inaan la tartanno mashiinka alaabta dhaqa. Asad Bashiir ayaa isna u qoray, yaakhay ilaahay ku xamdi, ugu yaraan waxaad cuntaan ayaad haysataan maadaama aad alaab dhaqayso. ma waxaad doonaysaa inuu Ramadaan ku tago si aadan alaab dambe u dhaqin? Sacdiye Xaaji ayaa iyadana u raacisay, ha 30 saxan ayaad ka oynaysaa, suxuuntiina wayba yar yihiin. kuwaas oo kale annagu hal mar baan aayar u masixi lahayn. haddaad arki lahayd dheriga aan casiidada ku karinno ee biyaha laga buuxiyey, macalgaddii alwaaxa ahayd ee cuntada lagu karinayeyna ay dhex fadhiso, oo baamiye la shiiday uu ku dheer yahay, maxaad yeeli lahayd? miyaad isdaldali lahayd? aniga gacantayda waxay noqotay qori gubtay. haddaan nin zool Suudaani ah ku garaaco, horuu ka dhimanayaa. dhaqidda suxuunta cuntada lagu cuno waxay weligeed ahayd hawl aysan raggu ku xeel dheereen, oo waxaa ku rafaadi jiray ilaa maantana ku rafaadaya waa dumarka. waxaana tusaale kugu filan in mashiinka alaabta lagu dhaqo ay hindistay haweeney Maraykan ah oo lagu magacaabo Josephine Koshra, oo suurto gelisay in mashiinkii ugu horreeyey ee alaabta lagu dhaqo ay dadku guryaha dhigtaan sanadkii 1926. Suudaan waxay ka mid tahay dalalka ku fiican martisoorka, gaar ahaan maba ku sii jirto bisha Ramadaan. waxaana lagu tartamaa dadka dariiqyada maraya iyadoo loo gacan haatinayo si afur bilaash ah loo siiyo, iyadoo markaasina alaabtaasi faraha badan ee cuntada lagu cunayna dhaqiddeeda ay sugayso hooyo, xaas ama inan yar oo miskiin ah. dhaqan ahaan Suudaan waxay aad isugu dhow yihiin Soomaalida, oo raggu inay cunto kariyaan ama jiko galaan waxay agtooda ka tahay sheeko aan la soo marin karin, xitaa haddii gabadha ay la dhasheen wiilal fara badan. rajo lagama qabo inay ka caawiyaan saxamo dhaqista iyo cunto karinta ilaa dad yar oo ay naxariistu ku dambayso mooye. haddii aan u imaanno dhaqanka Soomaalida, dumarkeenna ayaa sida Zainab oo kale waxa ay keligood u xilsaaran yihiin cunto karinta, afur diyaarinta, suxuur karinta iyo weliba inay dhaqaan alaabtii cuntada lagu cunay. waxaa intaasi u sii dheer inay gacantooda ku dhaqaan wax alla iyo wixii dhar ah ee guriga yaalla ee ay leeyihiin wiilasha la dhashay iyo waalidkooda, iyadoo badanaa ay yar tahay in wiilashu ay gabdhaha walaalahooda ah ka caawiyaan howlaha guriga
oo aysan cid gooni ah xaq u lahayn inay keligeed ka shaqayso. Wiilasha Soomaaliyeed ayaa gabdhaha walaalahooda ah ee sida jaariyaddii ugu adeegaya ay qaarkood ka saacidaan howlahan faraha badan, halka qaar badanna ay u arkaan in haddii ay kurshiinka galaan ay u tahay sharaf dhac. Dhinaca kale, marka aan u imaano dowladaha horumaray, waxaa inta badan guryaha u yaalla mashiinka alaabta lagu dhaqo, hase yeeshee mashiinkaasi ayaanan inta badan lagu meerin halka ama labada saxan ee markaa cuntada lagu cunay. Waxaana jira xeer ah in qof walba uu dhaqo saxanka iyo bakeeriga uu isticmaalay si aysan alaabtu u badan, isla markaana loo ilaaliyo inaan mashiinka la kicin si loo dhaqaaleeyo biyaha iyo korontada. Waxaa kaloo iyana jirta in haddii uu qof cuntada kariyo uusan ku darsan karin in misna uu miiskii lagu cunteeyey soo nadiifiyo ama inuu alaabtii wax lagu cunay uu meero, taasoo u muuqata mid cadaalad ah, balse in wax alla iyo wixii alaab ahaa ee wax lagu cunay loo raseeyo gabar yar oo jikada ku jirta oo markii horena cuntadaasi faraha badan soo karisay ayaa u muuqanaysa mid cadaalad darro ah oo u baahan in dib loo eego. Isku soo wada duubo, dumarka Soomaaliyeed ayaa iyaguna ka mid ah kuwa qaatiyaanka ka taagan alaab dhaqidda, gaar ahaan bisha Ramadaan oo digsiyo waaweyn lagu kariyo cunto tiro badan oo hadhow dhaqidoodana aysan raggu la qaybsanayn.